xildhibaan aadan axmed jibriil aadan calas oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada sheekh oo maanta shir siraad ku qabtay gudaha magaalada sheekh ayaa waxa uu eedeemo dusha uga tuuray qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera oo habeenkii xalay ahaa iyagu ka hadlayay warbaahinta madaxa bannaan sidoo kale waxa uu ka warramay taariikhda faca weyn ee uu leeyahay guud ahaanba gobolka saaxil gaar ahaan deegaanada bari iyo wada noolaanshaha bulshada ku dhaqan guud ahaanba saaxil waxaanu yiri deegaanka waxa leh cidda meesha ku abuuran ilaahay ku umay ayaa iska leh waana loo daafrisanay waxna waa laga weydiinaya marka taa laga imaado nimankii xildhibaanada shalay hadlayaan saaxiibada ahayn waxay yidhaahdeen haddaan nahay beesha bariga Berbera dhulka yaga dhul baan wada degnaa dhul la anaga khaas kale horta waxaan u sheegayaa anuu halkan uga sheegay saaxiibaday malaa taariikhda aan garanayne dhul ay leeyihiin ama ay degaan ma jiro laakiinse waxay ku yihiin waa daaqsin wada daaqsinaho maxaan ku dhahaa martiyo meesha degan sababtoo ah waxa jirta dhulka ay sheegayeen xalcad buu leeyahay noo kala yaala cid kastaan oo ogto wixii geedo cad ka sokeeyana waxa weeye marti bay ku yihiin waa daaqsin kana dhulka damar roobka helo waa la degaa waana laga gudbo balu fiirso dhulka magacyada uu leeyahay gardi waa nin makaahila guure waa nin makaahila bahdoon waa nin Abdulrahmaan Muuse Ciise Muuse waa dhulka sidaa wacad wixii daaqsinna waa la wada daaqaya arrinta muddada dhan soo noqnoqonaysay maanta waxaan u iftiiminaynaa in xadka cad uu xisaabtami doono ninkii maxaan ku raayay sheegay midmadu kaga jirana waa loo cadeynaya laakiin taariikhdu ma dhaqto mana duugowdo yaa saaxiibadu waxaan u sheegayaa war dadka masaakiinta ah ee maxaan ku rahay maatada ah ee meesha degan yaan been loo sheegay mad walaalaa maxaan ku dad isdhex yaala waa dad daaqsin wada leh ويان دنجاجالا دتك waxaan ku wax khaldanayaan dadka umada loo sheegin oo maxaan ku rahay sheego cilada dhexgelin taawanta intaas wayga waano wax kale aan sheegaya waxay yiraahdeen saaxiibaday waxay yiraahdeen dagaal baa qamoyeys lagu galay anagu cid qamoyeysanaysa iyo cid qosol dagaal ku galaysa horta midna ma ogin dhulkana dawlad baa ka jirta sharci baa ka jira kala dambeyn buu leeyahay cid qamoyeysanaysa dawladda qabanaysa iyo cid dagaal galaysa waa la dhaafay waxa 2000 baa la marayay 18 wax laga soo gudbay yaan dadka dib loogu celin taas waa taa anagu ma garanaa cid qamaysanaysa ciidan maxaan ku rahay shay qosolka dagaal ku galaysa waan u sheegay saaxiibaday dadka dhulka yaala waa dad goba waa dad la noolaado waa dad dulqaad badan waa dad maxaan ku rahay sheegin ixtiraam mira hadii laakiin laga badbadiyo way waxa weeye maxaan ku rahay jawaabtooda ka bixinaya waa laga jawaabaa sharci weeyaan saaxiibaday sida ku yimaadeen waa la og yahay cod xaaraan ay ku yimaadeen oo shalay loo boobay soo garanayso dee waxa ku rahay la wada og yahay ayadoo sida la wada og yahay hadana leeycuna oo cabba oo dhaxmara oo maxaan ku rahay ixtiraam loo hayo shidaal baa maxaan ku rahay ninka xildhibaanka ah wuxuu ka hadlay aan uga jawaabayna bay dhahay haamaha shidaalka warday haamaha shidaalka hadduu ka hadlo xildhibaanku Saciid Artan uu ka hadli karo waa nin deegaana wixii xunno waxaan ku saxaya wixii maxaan ku saxana uu qoweynaya hawl idinka idin taala iyo wixii idinku jira saaxiibayaal ma jira baan leeyahay hadalkan xildhibaanka ayaa hadaba ku soo aadaya xilli ay xaaladii ka taagan tahay qaar ka mid ah deegaanada gobolka saaxil amuurtan ayaan hadaba la saadaalin karin halka ay soo ligi doonto waa Cabdirashiid Mubaarak Cabdi Cabdirashiid Soul telefishanka caalamiga Somali Cable Berbera